waxaa magaalada muqdisho ku soo qulqulaya qaxootiga ka imaanaya dalkaasi Yemen oo dagaalo xooggan ay ka dhacayaan iyadoona dadka qaar ee ka imaanaya wadanka Yemen ay la soo kulmeen dhibaatooyin xooggan oo mararka qaarna jirdil loo geystay anaga macna xabad ka qaxnay oo wadan shay u qaxnay haddana dagaal lagu sii dhacay macna meel aan u qaxdaa lahayn marka dhibaatada ugu weyn taas ah macna wadanka aadeen oo marka qaad meel aan u qaxdaa lahayn أنا تاسع ودرد ما إحنا نك أوقايس ندوش شوا قرص أنا تاسع ودرد أنا معنا ودك أمريكا جبت أقايس ميرا قاي كذا أنت قاي بيرو قاي معنا كسمة قاي لكن مرة ود الشيء جبت ميرا قايس لمين قال هذا دتك هذا لجوكتا قدي يلوح الساري إني دتك سمت بعيانا لجوكتا وقرقان قروح بدن لو كده بل درين كهكور قدام والله فرحة درت لوين وحل لوين وفرحة دوي يوهين يودك يا مالي عيد أي مال الحمد لله رب العالمين إله مهله guddiga loo xil saaray badbaadinta iyo samata bixinta dadkani ayaa maanta waxa ay booqdeen guri weyn oo dadkaasi ay ka degan yihiin degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho maama Shariifo Caddo Culow waxa ay ka mid tahay guddiga loo xil saaray samata bixinta dadkani Soomaaliyeed wax allaale wax la diidaa mala timir bur sokor lacag kaliya ma dhar daawo kulli oo dhan la soo gaaro walaalahayna dhibtoon waa istabayaalin waa in loo naxariisto juuc iyo jahannaba la isla masliyay waa inaad ogaataa ilaahay ku dhaarsho ummadaas loo gargaaro Soomaaliya dawladda dalka ka jirta dawladana ilaahay ka cabsada idinka leedin amaalimka yawmal aakhiro leedinku amal weydiiha idinka kafaar qaadan u dhaaratan qutub u qasheen anaka waxana wada damiir wadani iyo muslimnimo iyo inaan ka naxayna cidno adeegsato male dagaalada Yemen ayaa sababay inay waxyeelo badan ay ka soo gaarto shacabka Soomaaliyeed ay ku dhaqana dalkaasi iyadoo xabsiyada wadankaasi Yemen ay wali ay ku jiraan kumanaan dhalinyaro ah sida ay ii sheegtay haweeney afar caruur leh xaamilana ah saygeedana ku jira jeel ku yaala magaalada Sanaa haye Yemen ka timid goorma soo gashay waxa soo galay saddex bari maanta ay taan jooga haye dhibaatooyinka halka ka jira maxaa noogu sheegay wiilasha macnaa sijinkay ka buuxaan Sanaa aadan meel kasninkeen loo ku jira Abdurrahman Maxamed Ahmed Allah kul meel ka soo ka buuxaan hada sijinka degto 10 wax ka soo ku jira 40 ku jiraan oo niman ahan ku dheh oo ku dhaabay dhiib root waxa sar rabaa silci nolol xuma taal meeshas magaalada ka timid Sanaa ka soo baxay cadan way ka buuxaan mukulna ka buuxaan meel ka soo ku jiraan wiilish sababta loo xiray wax ma ka ogtahay waxa loo xiray علشان اليوم ما لوش باورك ما دخايانو ninka aan carba ku booda ana ma عندي ولا فلوس حقي بلاد ابو صومال محمله فيرال ضل بعدين ولا قبنا الحرا abwaan Guure waa xubin ka mid ah guddiga samata bixinta iyo badbaadinta dadka Yemen ka soo cararaya warar maalmahan magaalada dhex maray oo dhahay hadii aan la kula wali baabuurtii dad ma keenin warkaas waa been oo kuwa shalay iyo maanta ba soo galay ayaa jooga sida safiirku sheegana dadka waxa lagu ogaa karaa waxay wataan dukumeentiga ay uga soo baxeen Yemen ayay wataan ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay qaxiyo qaajo waa qandhe uqura qeyr qaabooyino gabadhani waxa ay ka mid tahay dadka laga keenay dalka Sacuudiga xaruntan ayay ku jirtaa dalkeeda markii ay ku soo laabatay isbedel weyn ay dareentay maadaama aan wadankayga joogo waxaan jeclaystay inaan qurux badnaado oo farxadayda iyo quruxdayda soo celiyo marka waan cilaansaday alxamdulillah aadna waan loo soo dhaweey wadankayga waan joognaa walaalaha ayaan la joognaa aadna waa mahadsantiin warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa waxa ay wadaan gurmad lacago loogu aruurinayo dadkani Soomaaliyeed dadkii lacagaha dhiibay waxa kamid ahaa wiil kabaha casaya ama baalashla oo $1 uu shaqaystay ugu deeqay dadkiisa Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabanaya iyo gabar ardayad ahayd oo lacagta jaamacadda si toos ah ugu wareejisay guddiga gurmadka iyadoo dadka Soomaaliyeed looga fadhiyo inay qaybtooda ay ka qaataan samata bixinta qoysaskani dalka dib ugu soo laabanaya سلمان جمال سعيد TV عالمي يونيفرسال مقالة مقدشو